waxa la doonayaa habka protocol ee ku maamulaysan kaartroolada galbeedka iyo waqooyiga iyo isku xidhnaasho aad muujisaan doorkii maadaama gaabkii dawladda aad buuxiseen oo idinku dadka ciidanna u tihiin waxaad tihiin halgamayaashii hawshaa fuliyey ee dhiigga u huray laba dagaal bay nagu socda labada dagaalay nagu socdaa mid waa ku boorama ka socda oo aad arkaysaan odiga arkaya burburkay nagu dhacay iyo dhibaatada nagu dhacday oo aad arkaysaan maamulka halkaa laga dhisay gudoomiye ku-xigeen leh ee xoghayn leh ayaa iyo sargaalkaa shiino marka horeba dee taliyaha saldhigga galbeedka ahaa ayaad la shaqaynaysaan afartii cisho u dambaysay iyo maanta marxalado kala duwan baan soo marnay ilaahay baanu mahadnaqaynaa inaynu maanta nabad haysanno aynu ka wada hadlayno sida nidaamkeena u saxan lahayn ee nolosheenii caadiga u soo noqon lahayn oo meel fiican inoo maraysa ilaahay mahadi weeyaan dhalinyartii dhimatay allah u naxariisto way shahiideen ilaahay jannada ha geeyo kuwa dhaawacaana ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay caafimaad degdega siiyo nidaamkan hadda aynu samaynay waa nidaamku meel gaadha oo dawladda hoose ay kaantaroolada marka ay la wareegayso ay kala wareegi doonto system waa inuu jiro wax lagu kala wareego haddaan intaa aynu dhaafno oo intaa aynu keeni weyno nolosheennu waxay ku noqonaysaa tii cawaanka iyo tii xoolanimaday ku noqonaysaa waxaynu wax ku nahay waa nidaam iyo system ayaan waxnu ku nahay kaasaynu ilaasheenna hadduu ilaa idhaahdo dhallinyartu aad bay u mahadsan yihiin weli wax dhiba oo halkan laga sheegay anuu ma arag mana jirto waxay ku tusaysaa xilkaasnimada ay halkan ku hayeen ku ilaalinayeen taana waan uga mahadnaqaynaa abaalkoogana way naga heli doonaan hadduu ilaahay idhaahdo insha allah binillah laakiinse nidaamku waa sida aan sheegay dawladda hoosaa kala wareegi doonta hadduu ilaahay idhaahdo iminkana goobjoog waxuu noqonayaa sargaalka shiine intanba waa inteennii ma qof ajaanib aynu ku jira waa innakuna gacmaan is haysanaa waad mahadsantihiindhallinyartan xaafadda sheekh cismaan beedka magaalada boorama xalay ilaa iyo saaka ayaan la wada hadlaynay wada hadallo hoose ayaa noo socday waxaana ka wada hadlaynay sidii ammaanka galbeedka magaalada boorama inagoo iskaashanayna anigoo sugi lahayn way naga aqbaleen way naga qaateen wayna soo dhaweeyeen intaa anigoo guddoomiyihii galbeedka magaalada boorama halkan saaka waxaan kaga dhawaaqayaa 4 xubnood oo nabadda galbeedka magaalada boorama ama kastankaas iyo kastanka kaleba ka mas'uula intay xaaladdu soo ku soo noqonayso afartaa xubnood iyo sargaalka shiino wada socdaani waxay ka shaqaynayaan amniga galbeedka magaalada boorama ومالكي أفراد إنه كورمير كمجالات الدجنتا إيو نظام كلا ضمبين تسيدي سكسو علنتي سانكو جودة شرنو runtii waxaan ku faraxsanahay inaan soo gaarno controlka galbeed oo ugu weyn oo ah controlka ugu weyn ee isku xidhay Ethiopia iyo Somaliland runtii waxa gacanta ku haya dhalinyar wanaagsan oo kuwii dhiigooda dadka u huraya ee in badan ay ka dhimatay oo u mahad celinayna say gacanta ugu hayaan mar kale maanta waxaanu halkeedii ka sii anba qaadaynaa nabadgelyadii aad hirgeliseen ee baaqi dhaqankiina iyo haldoorka bulshadiina iyo xildhibaanadiina aad maqasheen aad qaadateen annagoo sii wadnaa ujeedka sidaad ma taqaano geedigaad uga guureysaan habkii hore ku maamuleyseen waxa la doonayaa habka protocol ee ku maamuleysaan kaartroolada galbeedka iyo waqooyiga iyo isku xidhnaasho aad muujisaan doorkii maadaama gaabkii dawladda aad buuxiseen oo idinku dadka ciidanna u tihiin maamulna aad u tihiin waxa la idinka doonayaa inaad nabadana gacanta idinku ku haysaan inaad qaabkii dawladda idinku u shaqaysaan ilaa nidaamka kala guurka hab loo sameeyo maamul kaasoo idin kala shaqeynayaan xildhibaanadeena oday dhaqameedkeena iyo aqoon-yahankeena iyo dhammaan halkan wada jooga dhammaantood waxaanu doonaynaa inaanu isku xidhka jidka ilaa jigjiga isku xidha jidkan weeyaan ee degmooyinka ilaa city isku xidhaya kana waa kii la Djibouti isku xidhaya halkan kalena kana waa kii la Hargeysa isku xidhaya intaba hab nabdeed oo isku xidhan oo idinkuna isku xidhnaashihiinuna nabadana aan meesha ka saareen isku socodka dalkana aan meesha ka saareen inaad abuurtaan baanu doonaynaa inaanu hab maamulo kala dambeyn idin dhisnaan doonaynaa anad gacanta sidaa ugu sii haysaan horta waxba wada doonaynaa waxba ma kala doonay waxayna way naga dhamaaday inaan halkii aan joognay aan hoos uga soo dhacnaa diyaarumani ummaddooni nolol bay doonaysaa noloshii haddaynu burburino inaan inagu isburburino nolosheena burburino maynaan soconine waxaynu diidnay haddii ay ilaahay sidii aad rabteen oo ka yeelay
meeshan kaantaroolada waa in la furo waa inay nabad noqdaan horta waxaan taxsiinayna dadkii naga dhintaan taxsiinayna ilaahay u naxariisto intii dhibata allah u naxariisto inta dhaawacana allah inoo bogadhayo intaas waa duco ilaahay kuwa jannadii firdowsa ha geeyo aakhirada qabriga allah u nuuro allah u naxariisto intaa ka bacdi waxaad tihiin halgamayaashii hawshaa fuliyey ee dhiigga u huray laba dagaal bay nagu socda labada dagaalay nagu socdaa mid waa ku boorama ka socda oo ad arkaysaan odiga arkaya burburkay nagu dhacay iyo dhibaataday nagu dhacday waad arkaysaan tan labaadna waa halkii loo dan lahaa weeyaan waa saylac iyayna taasna inaga baylihin taas iyayna inaga baylihin hawshii iyo ujeeddadii aan lahayn iyo hadafkeennii saylacni inuu inaga baylihin hawshanaad gacanta ku haysaanna sidii dad jira oo dhul kale oo lexejeclo ka qaba u maamula waxba yaan inaga baylihin dawladnimadu gacantiinay ku jirtaa inigaa gacanta ku haya waxba yayna inaga xumaanayn sidaa darteed waxaan igu hambalyaynayaa inaad si mugle oo miisaanle had u shaqaysaan oo dawladnimadii isku xidhkii waddooyinkaad eeg administrationkii eeg gacantaad ku haysaan waddooyinkan aan joognay waxa waddooyinkii galbeedka isku xidhayey jigjiga ilaa tiri dhaba kuwii isku xidhayaad joogtaan markaa waxaa suuragala yaynan waxaynu hoos marin nabadgelyada xakameeya wixii hore inagu dhacay wax dhaafsanoo dambeeyana inoogu biirin waxaan igu boorinayaa oon inagu hambalyaynayaa sidaas shaqada u haysaan inaan inagu taageerno ayaan horta dhaqan ahaan anigu inagu taageeraya aad baan inagu hambalyaynayaa waad salaamantihiin og tahay way mahadsan yihiin saaka intaa ay noo qabteen waan annaguna ku taageersannahay nabadgelyadana dee gacanta in annagu u haysanno oo inay cid kale aanay noogu hayn baa muhiima wixii halkan noogu yimaada innagaa leh maaha la cashuuro ama waa hantidii galbeedka ka soo gashay wixii halkaa maraya innagaa iska leh haddaan innagu dhulkaa aan ilaashan weynana cid inoo ilaalinaysa ma jirto markaa dhallinyarta iyo haweenka iyo wixii nabadgelyada qusaysaba waxaan leenahay waa dhulkeenna ha dhowranno nin walba siduu isku maamulaya han maamul han kala dambayno maamul han yeelanno guddoomiyaha dhallinyarta loo daba fadhiisto sargaalka taliyaha lala shaqeeyo iyo intaa magacaabayba walaalayaal sistamkii meesha ka talinayay waad burburiseen guul baanad gaadheen waana wax ilaahay loogu mahadiyo baasha lama wada helee waa wax ilaahay loogu mahadiyo nabadda han ilaashanno nabaddeenna han ilaashanno waxa weeyaan guusha aad gaadheen haynaga barqinina dadkana waxaa ka qaadina iyadoo dadka fasaxa ku galo yaa xigta horta intii naga dhimatay ilaaha u naxariisto waanu tacsiyadaynaynaa geeri waxay dhinteen guul ah intii naga dhimatay geeri guul ah ayay dhinteen naftu way bixi lahayd laakiinse si sharaf leh ku dhinteen ilaaha u naxariisto marka xigta intaa walaalahay yidhin baa aniguna aan ku darayaa bini'aadanku kala dambayn buu u baahan yahay guriga xitaa gurigu waa inuu horjoogo lahaadaa dee waa aabbaha weeyaa gurigu kala dambayn waa inaan lahaanaa inteennaa maanta halkaa iminka loo xil saaray walaalayaalow aan uga dambayno iyagana mid baan leeyahay walaalayaal mas-uuliyad baan ili saaray waa dadkiinnii intaad ilaalin lahaydeen saad u ilaalin lahaydeen falowgeed gala eeg waxaan waa isku dhiib waa qori isku dhiib hawl ka weyn bayna sugaysaa maantoo inoo taalla oo bari iyo galbeedba ah eeg hawl ka weyn bayna sugaysaa idinkuna hawshaa aad maanta aad inlii xil saaray sidaad uga soo bixi lahaydeen in xeeb loo dhaqaaqay noo hadhay maamulka halkaa laga dhisay ee guddoomiye leh ee guddoomiye ku-xigeen leh ee xoghayn leh ayaa iyo sargaalkaa shiinoo marka horeba dee taliyaha saldhigga galbeedka ahaa ayaad la shaqaynaysaan